waxaan ka mid ahay odayaal dhaqameedka ama malaaga Digil iyo Mirifle ee Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal baana asalkayga waxaan ka soo jiray koonfur galbeed laakiin hadda waxaan ahay nin muwaadin reer Puntland baan ahay Soomaaliyeed dalkiisa joogo ee dalkana idigama lahan in maanta maaragtay xoog ii sheeganaysan maarag hadda kama sugayo marka malaaga Digil iyo Mirifle gobolka Nugaal baan ahay magacayga malaaq Khaliif Maxamed Axmed baa la yiraahdaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkaa taasiyad ugu direynaa dadkii shalay daraa lagu xasuugay magaalada Gaalkacyo dhinaca Galmudug dadkii lagu xasuugay oo lagu laayay baanu taasiyad u direynaa intii dhimatay la Allah naxariiso intii dhaawacantayna Allah aafiyo eheladoodina samir iyo iimaan Allah ka siiyo hadda arinta arin foolun weeye arin maanta Soomaali ay u baahan tahay maahan Soomaali wixii dagaal sokay iyo dhibaato wixii ay soo mareysay waa soo martay waxa u haray malahan say ila tahay wax dhibaato dagaal sokay iyo reer hebel iyo la soo maray waa la soo maray hadda in dib looga celiyo oo waxyaabo in noocaas la sameeyo waa arrin nasiib darre weeye dawladda Galmudug dawlad weeye maamul goboleed weeye maamul goboleedka waxa laga rabaa hadda ninka adoo dawlad meeshii ay jafad ma ahana dawlad hadday meeshii ka jirto idii dhibtaasi sameysay in si dhagsale loo soo qabto sharciga loo horkeeno dhibaatada kale oo jirta waxay tahay hadda Digil iyo Mirifle al-shabaab ma ahan al-shabaab hadda idda ma aragtay Digil iyo Mirifle al-shabaab ku saxiinaysan la yaab wal al-shabaab Soomaali kaliya hatta ma ahan waa urur weeye urur oo inta bani aadan ah oo nool adduunka qof ku jirin malaha haddii meel wax ka dhacaan hadda qof shabaab ay wax geysto Digil iyo Mirifle weeye Digil iyo Mirifle waxa al-shabaab dusha looga saaray taas anigu waa garan lahay ma garanayo arintaas meeshay ka timid dadka arrimahaas oo kala sameynaya la weydiinaya arintaas waa arin aad iyo aad maaragtay aan ugu xunahay weeye hadda dawladda Galmudugna waxa laga sugayaa jawaab degdeg ah arinta inay ka bixiso ay wax ka qabato hadda dawlad buu weeye dawladda waxa laga rabaa wixii dhibaato noocaas ah dhoweydii maaragtay dhibta ka dambeysay bay soo qabata sharciga horkeenta wixii waajibaadkii isagu leeyahay bay marinaysaa haddii arintaasi dhici weyso hadda waa arin maaragtay nasiib darre weeye taasina taasaan leenahay tan kale toode Soomaali weeye dalka ma kala laan dalka Soomaali weeye dalka ma kala laan nin walba meel alaalo meeshu isagu ku nool yahay oo marka uu degan yahay buu dalka kaleeyahay dalka Soomaali dalka ma kala laan haddii dalka la kala sheegto meel badan oo hadda la wada degan yahay baa laga guuraya Soomaaliya dalka ma kala lahan dalka waa wadaagta dalka waa naga dhaxeeya dalka in la iska sheegto ma ahan ninkii aad gurigaaga ku jiro oo degan aan meesha guri kale aan adigu marti ku ah inaad laysido dishaan oo dhibaataysan hadda taasi waa horta nasiib darro weey idii waxa sameeysan hadda waxaan u arkay kullayba waa dad isma iyo wax garad iyo Galmudug waxay leedahay salaadiin iyo isma iyo ulmaadiin iyo dad madax oo wax garanaya bay leedahay arintaas hadda wixii kaga jawaabi lahayn iyagay u taala koonfur galbeed waxaan leeyahay koonfur galbeed hadda odayaal baa ka hadlay oo waxay yiraahdeen Puntland iyo Galmudug baa dadka reer koonfur galbeed lagu dhibaateeyo Puntland anaga joogno laguma dhibaateeyo reer koonfur galbeed dadka ka soo jeedo oo reer Puntland laguma dhibaateeyo laguma laayo laguma hasuugo dal muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalkooda degan weeye oo kii ganacsi waysta kii hamaaliha waa hamaasha kii shaqaysanay waa dad Soomaaliyeed oo meesha doonaan maray wax doonaan ku hadlayo oo dalkooda joogo weeye oo dalkooda degan dhibaatadaasna hadda Galmudug bay ka dhacday in maaragtay hadalka sidoo yahay loo sheegaa fiican in sida hadda
odayaasha wixii hagga ka soo higaba hadda inay hal dawlad isku yihiin hadday u qabaan kuma darin ma ahane waa laba maamul bay kala yihiin Puntland iyo Galmudug bay kala yihiin waa laba maamulkaasi waa hadda dhibta ka dhacday Puntland wax dhibaato kama in digil Mirifle joogana waa ku dhagan yihiin dhibaato ma qabaan nabad bay ku qabaan in maanta maaragtay wax dhib ay u geysanayso ma jirto horeyna ugu maarag haddana kama sugayno meesha wax ka dhaceen waa Galmudugna waxaanu leenahay hadda Galmudug ay warba laga sugaya dadka kaas wixii lagu laayay idii laaysi in shariga hor keento oo nidaamkii dawlad lahayd aad soo mariso waa lagu qanaciyaa markaa anagu taasaanu leenahay intii dhimatay Allah u naariso ehladeedana samri iimaan Allah ka siiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh anigoo magayga nibadoon ugaas maxamed aadan cali oo magaca digil Mirifle aan ku hadlaaye inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhacdadii ka dhacday gaalkaaya dhanka Galmudug waxa u taasiyeynaya dadkii meesha lagu laayay dadkoodii qaraabadooda ehelkoodii higtidoodii iyaalkoodii baan u taasiyeynaya taasiye ka bacda dadkii dadka hasuugay oo Galmudug ahaay Galmudug waxaan u qabnay dad maamul goboleed oo dawlad oo dhaqanka dawladaha leh dhaqanka maamul goboleedyada leh wixii dawlad istaamaasho oo wixii dambiile soo galo oo sharci leh oo maxkamad la kor keenaya dambiilaha hirayso oo faan dambi lahayn iska ilaalinayso baan u qabnay hadyarna waxa iigu muuqata dhaqan jabhadeed dhaqankaas hadyar meesha ku dhacay dadka lagu sameeyay dambi meel kasta ku dhacay dambiile qabiil male haday dambiile heshay oo ay hayso hadda ninkii hal qof dilay oo dambiilaha lagu sheegay anigu wuxuu yahay ma naqaan kaasaaba ka dambiyar dad gurigooda jeefo oo hurdaaye oo la soo guri oo waxba la weydiin habeen midow la laay Soomaali meel ay ka dhacdo ma leh hatta waagi burburkiyo isbeegsiga jiray hatta inta sidaa ma dheen tuuga jirtay baabur baa dheer jirtay way wax ka qaadan jiray dhaawac jirtay sidaa had yar dawlad lagu sheegay hadda jabhad tuuga hatta wax ka yeeshan jirtay maamudku Galmudug waxaan u jeedinayaa dambiilayaashii oo dadka laayay oo inay soo saarta waxay dhacay waa dhaceen wixii magacuhuma oo nidaamhuma oo dawlad dara inay ka heshooto oo arinta wax ka qabato oo magaceeda dawladnimada ilaashato oo dambiilihii soo saarto waxaan dhacdo waa dhacda maxaa ka dambeeyay waxa ka dambeeyay hadaa laga hagaajiyo waxba meesha muuqanaya laakiin maamul goboleedyada waa la joognaa oo kuwan ka dhalan waa aragnay maxkamada ay leeyihiin la xisaabtan bay leeyihiin wax kasta leeyihiin dhacdo waa ka dhacda dambiile waa la hira dambigiisa lagu qaada haduu dil yeeshaata lama arkan haafad dambiilaa wiligay ma arkan goomi dambiilaa wiligay ma arkan hadii qoomido dhan dambiile laga sheego halka ayaa degan luuqada ayaa ku hadla dadka lagu laay dadkan luuqad baa loo laay qoomiyad baa loo laay oo dambiile looma laay saddex qof oo wada sooto dambi isku ma raacdo hadaa la soo qabto kii dambiile iyaga sheegaya dawlad hadaa tahay waxa ka sugayni sharci iyo maxkamad iyo nidaam la soo maro waxa nagu la dhaqantay waxa jabadaba ka heshooto waxa koonfur galbeed la dardaarmaya dhacdo meel kasta ka dhacda oo dibida ka dhacda dalka ka dhacda meel kasta ka dhacda wixii dhijiri wax kamid ah baa idin ku dhacay dulqaad sameey oo wada loo mar u mara wixii nidaam u mara nin baa yiri qof kasta wixii kugu sameeyaa lagu sameeyaa in haduu ka rid ilaada laga rida haduu farga gacan ka gooy gacan buu ka gooyaa nin waa soo booday uu hiri nin waxan ku shaqeeyay waa laga haraa nin dhaqanku ku shaqeeyay laga ma arsida waa laga haraa laguma daysto islaan musaafira dad musaafira umad kale waxba ogeyn intuu la qariib lahaay arintan shariga loo bandhigo
dowladda leenahay oo federaal leenahay meel isku imaadaan leenahay eebtaan galmudug kaligeed ha taaganaato koonfur galbeed waxa u jeedinaya ina wax ka daran aan sameyn eebtaan galmudug kaliya hala taalo iyada lagu sugayay jawaabtooda. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.